السلام الله عليكم أصحابتي maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad u qosol badan oo la yaabi doontaan dhalinyarada TikTok iyo waliba dhalinyarada YouTube-ka oo huf iyo hal aan jirin laga dhigay loona daatay ayaan maanta idin ka daba geyn doonaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe taadu waa dhiirigelin, like taadu waa codsi, commentiga fikirkaaga waa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii shalay commentiska kusoo qoray thank you Cabdi Askari aan ka dalbaday 100 qof kaliya aan dalbaday, laakiin dad intaa ka tira badan ma taqaanaa soo gudbiyay. sidoo kale dhalinyaradii shalay aad ka taqaanaa igu taageeray barnaamijka garab istaaga dhalinyarada Soomaaliyeed, iyagana waxaan leeyahay waa idinka guddoomay sharaf iyo karaama leedihiin. haddeer waxaan moodaa meel qof dhalinyaro talent leh hadii lagu arko qofka koobaad ee laga meeshin gareynay inaan ahay. taasina waxaa keentay dhalinyarada inay igu tuhumayaan nin aan xaqiraad iyo xaastinimo aqoon dhalinyarada mar walba soo bandhigin aan ahay. that's why markay mar walba qofkii talent leh iga meeshin gareynayaan dhalinyaro fara badan oo iga meeshin gareeyay isagana barnaamijyaan ka soo diyaarin doona, ayagana waa idin keeni doona insha Allah. waa tahay maanta waxaan fiirinaa barnaamij dhankaasi TikTok ka socday oo aad igu qosliyay. barnaamijkan waxaa loo isticmaalayaa applicationkaas waxaa la yiraahdaa Reface. applicationka Reface la yiraahdo waa waji qof caan ah oo actor ama heesaa caan ah iyo anigaygaas arkaysaan baa wajigooda la isku dhex darayaa. marka qof 180 buu ekaanayaa, qof wax kale uu ekaanayaaba oo jinniya soo baxayo, qof 50-50 uu ekaanayaa. dhalinyaro fara badan oo TikTok iyo YouTube-ka ku taqaanaan baa lagu sameeyay iyo waliba qaar fanaaniina. dhalinyaradii lagu sameeyay barnaamijkaas waa maanta isla fiirin doonaa. qofka is leedahay alleelahay qofkaas waa la soo dhaweeyay ama qofkaas waa perfect waa la keenay, committee magaciisa nagu wadaagaysaa. ka is leedahay qofkaan shaqo iyo shuqul toona kuma lehna, committee nagu wadaagaysaa. bal marka hore muuqaalada aan isla fiirsano. aniga xataa idin sheegi doonaa qofkii aniga la soo dhaweeyo ila macquulsan waa idin sheegi doonaa. waa tahay qofka koobaad aan ku bilaabayno waa fanaanka Qamar Suugaani. sida halka uga jeedaan odaygii Qamar Suugaani ahaa waa ka halka taagan oo gacanta soo taaganaya. ninkii Qamar Suugaani ahaa waxaa moodaa horta timaha shuqul kuma leh. Qamar Suugaani oo Suuriyaan ah horta ninkan hortaagan waa Qamar Suugaani oo Suuriyaan ah, timaha ku yaalo iyo nidaamka. laakiinse bil xaqiiqa abuurist ilaahay kulli waxba kama sheegi karno, laakiinse Qamar Suugaani hadduu qaabkaas ahaan lahaa another level buu ahaan lahaa. waxaa halkaas kaaga cad Qamar Suugaani originalkiisii asliyadiisii inuu cadaan iyo meelahaas iyo wax adqaan ay wax ka soo galaan awowgiisii 25aad iyo waxba cadaana macnahaas ugu soo baxay. Qamar Suugaani waa la helay xariifkan. Qamar Suugaani say tahay isku keeneen. Qamar Suugaani oo cadaan ama arki lahayd weliga amaya hadda arag waa kana Qamar Suugaani lacalla haduu Ingiriis aan lahaa. waxaan fiireynaa bal qofka xiga. qoftan waa boqorada style-ka Kareena Kapoor. filimka ay tras oo akshay kumari xaaskiisa ay tahay oo ay ku jirto Priyanka Chopra oo lagu soo eedeynayo kufsiga beenta. filimkaas waay qoftan. marka waxaan dhihi karnaa boqorada style-ka indhahaas mooye sida kala shuqul ma kulahaan dhihi karnaa iyo sanka, indhaha iyo sanka. laakiin sida Qamar Suugaani uu u ekaa xoogaha inaysan u ekaan baa moodaa. kulley boqorada style-ka boqolkiiba inta aad siin lahaydeen idinka kulley commentiga noogu sheegayo, laakiin aniga waxaan dhihi karaa Qamar Suugaani ilaa hadda hogaaminaya qofka sida saxda ah loo helay waayahay. Ugbaad Aragsan oo cadaan ah weligaa ma aragti waa tana. Ugbaad Aragsan bayaan dhihi karaa Ugbaad Aragsan shaqo iyo shuqul kuma laha. Ugbaad Aragsan lacalla haddii sawirkaas meesha laga jaro oo qoftaas soo qabo lagu dhaho Ugbaad Aragsan may baan dhihi karaa Ugbaad Aragsan lama helin waayahay. fartuun balbalaarka in the house is the G shaydaanka Iskandar qof weyn ah timid legend haye. fartuun balbalaarka maxaa laakiinse qof xoogaa tima dhaadheer in lagu qabtay ahaydno. timahan gaaban iyo timahan cadaanka la qasay laakiin waji ahaan perfect way waa la keenay.
فرتون عادان فرتون بالبلارك وأمريكان أمانة بلاك أمريكان أهواي marka wajahan waa la keenay laax fartuun waxa qasay kaliya qoftaan timaha gaaban ee timaha cad in laga daayay qof timo madow caadi aan lagu qabtay ahayd aan qaadan karnaa fartuun balbalaarka waayahay fartuun balbalaarka waa qaadanay iyadii qamar suugaani waa qaadanay waa waray qoftaana aad loo keenay wariyaa qoftaan ka warrama qoftaan zaa'id loo keenay qoftaan bal aabaheedii hooyadeedii waxay weydiisay bal qof cadaan oo mataan kala ay xumeel leedahay macnaha si isugu egyihiin application-kii qoftaan sayt u qabtay gabadha Habi Axmed al dhaha waa tiktoker Habi Axmed qamar suugaan xataa kaanteeda kala baxday aniga dhankayga Habi Axmed al number 2 ah waxaa lambar 2 ah qof ninka la yiraahdo qamar suugaan fartuun balbalaarka 3 abaay guuxaye si camal bish arguuxaye si camal ya rasuulallah ya xabiibullah guuxaye ninkan computer ka fadhiyo shaqo isku malaha laakiin wallahi intaas ma kala fiiriyay macna indhaha intaas guuxaye ahaan waa loo soo qabanayaa laakiin setimaha shaqo isku laha intaas kora madaxa shaqo isku malaha guuxaye waxaan dhigi karnaa 30% intaas ma kala fiiriyo guuxaye caadi way la sida kala shaqo isku malaha waayahay وبب سعودال مقايد هذا كده حقدينا نوينا يمد لجن هاي سعودال ويجي والله سعودال ويجي والله بب سعودال أو لاتين أمريكان معناها مكسيكان أقول لك سعودال ومكسيكان واكنا والله بب سعودال و 50-50 واي بقول كنتن سعودال حق عندها يقابك سعودال ولا كنا دي كرا سعودال واقعتني سعودال واقعتي كنتن واي نجم النشاد يغفتن شغل اسكو مالها ماي نجم النشاد يغفتن شغل اسكو مالها ما قفتان قف كلام لو سوق بن كري سوق قفتان قف كلام لو سوق بن كري بad قف kala hadii soo kiislo isticmaal lahaa way kan lahayd ما عندها maybe معقول عندها maybe معقول ما aniga nijma nashaad waa diidi lambar 1 ani waxaan qaatay sida halka uga jeedaa ninka la yiraahdo qofta la yiraahdo Habi waa perfect waay boqol waay Habi number 1 waay aniga dhankayga laba waxa ay ninka la yiraahdo qamar suugaani qaabka timaha style-ka wajiga wuxuu dhan garka oo isku soo bixin qamar suugaani oo Ingiriis waa haynaa Habi oo Faransiis ahna waa haynaa fartuun balbalaarka oo Amerikaan ahna waa haynaa fartuun balbalaarka ayada timahaas bis qalday laakiin si application-ka si fiican u soo qabtay inta wajahada si fiican u soo qabtay mar labaad hal ugu celiyaan dhilaafa waraani waxa si leeyay imaanaya aniga hadii aan xariif oo waxa jiro oo ruushiyaan aniga hadaan ruushiyaan la iga soo dhigeen fadlan ilaahay haligu nabad galiyo face-ka laga ilaaliyo sidoo kale kaalinta afraad waxaan siin lahaa socdaalna waa 50-50 waay laakiin se boqorada style-ka najm nashaad ugbad aragsan iyo guuxaye afartaas waa diiday afartan kalena waa qaatay adiga markii aad barnaamijkan la fiirisay maadaama aan la joogtay bilow ilaa dhamaad dadka isleedahay wajigooda perfect waa la keenay yaa kaalid koobaad kugu jiro yaa kaalid labaad kugu jiro yaa kaalid saddexaad kugu jiro comments-ka inoo balamaad comments-kan ku wada ogaanayna waa tahay barnaamijkii reface ee TikTok-ga dhalinyarada iyo YouTuberada laga sameeyay in la sii barayo jeclaan lahaa in YouTuber iyo dad kale oo caan laga soo sameeyo iga meeshin galay reer TikTok waa ka soo sameynaya barnaamijkii intaas amaad ku soo gabagabeynayna hadii aad nagu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigina fikirkaaga noo waysaa intaan ku mid doona barnaamij kan lamid ah oo si karimaa gudaha Soomaaliya Soomaaliya shaqeynayay idin leh ciao